السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقال لي وانا اكسنتنا قال سو هذا حسدان وحسد اللايف كاهد ويقلي انالايز نو ايغي جيرني لعاغيه ويغ هوران ان لاس غرينay ina dib u eegi jirnay sidoo kale to wiigan soo socda waxyaabaha ka macquulka ah suuqa ayaan isla fiili jirnay insha Allah caawa waxaan sameynaynaa focus group kino saaran sidaad ka warqabtaan group oo la isgareey jirnay marba habeen koox aad u jirnay like mar dollarka mar yeenka mar crosseska waxyaabo noocaas oo kala ah insha Allah caawa focus waxay noo saaran doonaa dollar no wiiga hore aan la isgareeyay crosseska qaabka oo aan la isgareeyay iyo sida wax noqdeenna waan isla eegi doonaa insha Allah intaan waxyaabahaas aan u gudbin website-ka dadna waa soo jirana possible ah sharaxaad guud yara ka bixinaya insha Allah markaad imaadid Illiwave adjust website-kan horta laguma dhigo forex bilow dad badan oo waxa jiro markay yimaadaan 10 bilow rabnaa waxyaabo noocaas badan aan soo weydiiya marka hore la soco inaan bixinin anaga koorsooyin bilow ah sida basicska waxyaabaha yar yar oo forex hordhac ah sidoo kale استراتيجية فربنا اسكو ما دحودنا oo hal system aan leenahay mise hal istaraatiijiyad dadka barnaa taas marka laga soo tago waxa jiro marka services iyo qaybo resources ah adoo waxba kala aad iibsanin ama shahool kala aad qabanin data qof dhinaca wasiiba Illiwave ka xoog saarnaa anaga inaan suuq ku dabaqano sidoo kale Illiwave qolliga ama ahana midka niyuga ah qaabka suuqyadan caadiga hadda jiraan ee cusub sida loogu dabaqo sidoo kale to istaraatiijiyada aan ku taran kareyno qaabka loogu dabaqo ama fursadaha suuqa looga baarto ayaan dadka baranaa taas marka laga soo tago data qof ku cusub weefiska ama wax uga bilaaban yihiin koow waxa ku qasban tahay inaad imaadid qaybta resourceska loo shaqo kala aad qabanin Illiwave theory meeshan ay ku qoran tahay ku soo dhufso page-kan marka waxa ku jira wax kasta oo Illiwave theory ku saabsan kan waa theory-gan oo qalalan ma ahan suuq in lagu galo mase macali raada lagu trade gareeyo inta baratid impulseski ama corrections inta baratid suuq iska gali maysid soo sida maaha suuq shan dhaqaaqo sameeyay saddex dhaqaaqa soo laabatay waan iska raacaya sheeko noocaas ma aha way ka duwan yahay xaaladaas waxyaabo badan jiro oo anaga ku kabno oo qofku high probability trade iska lagu tusiyo ama uu ku heli karo suuqa markuu u barto waxyaabaas inay jiraan laakiin qaybtan hordhac weyn ku noqon doonta wax badan ay ka caawinaysaa oo muhiim ay ku tahay lagama tagi karo adoo midaan ka tagay koorso ma bilaabi kartid oo dib ay ku noqonaysaa marka midaan soo mar insha Allah aad u fara badan yihiin kuwaan xoog soo saar ku soo celceli si fiican u soo faham dhamaan waxyaabahan dhan page-kan ku jira si fiican u soo bar insha Allah markaas waxa haysataa page-ka waa ka dhisan tahay qofsalka ka dhisan aan baranaysaa insha Allah page-kan hadda intaas ugu gudbo arbiciis yarka ahay waxa jira marka isla qaybta resource inta ka bixin kuwan trading tools kan laakiin adoo oo maxaa la yiraahdaa wax ku bilaabay kuwan isticmaali kartid kuwan waxa qaab risk management trading markii la galaayo sidaan u maamulo account size-kaaga iyo fursadda aad qaadanaysid qaabka isku wacbiro haddaad u baahan tahay kuwan dhacooda ayagana qaybta service-ka ama free education-ka waxa ku jiro 10 dhan oo seminar dhan oo aan bixinay oo risk management ku saabsan oo aan ku sharaxayno qaabka qofku uu sameysanayo maxaa la yiraahdaa suuqan qatartiisa oo maamulayo trade qaabka uu qaadanayo marka tools-kan way ku caawin doonaan marka video-gan daawada si fiican u fahmi doontaa tools-kan waxay ka caawin doonaan inaad maamushid marka trade-kaaga tusaale account-kaaga intaas ay ugu jirto sidee fursada noocan ayaan qaadan karaa fursadee qaadan karin soo ma jeedo balance inta ka shanaysa inta bigoya inta ka shanaysa inta risk ay gelinaysa inta gelinaysa calculator leedahay inta waxa kaga soo baxay lodka uu gal lahayd lacagta khatarta kaga jirto waxaas dhan waa marka video risk management-ga marka hore inaan soo daawado ku fiican tahay laakiin perfect qaybta free education-ka dan ku soo laabto waxa ku jira marka ayagana ashraga gaaban ama maxaa la yiraahdaa trading tips waxyaabo badan inta lagu soo daraa markasta inaad daawad muhiim ku tahay ashradan oo kale weefiska ayagoo qoraal ay ku jiraan page-ka soo dhaafeenay
laakiin kuwa ayaga muuqaala waay wax badan ay ka anfacayaan ayaan insha Allah soo daawo waxyaabo meeshan ku jira oo freega waxba ka soo tagin kulli muhiim ay ku yihiin inta shaqo kale aad qabanin bas aadan bilaabin inaad hore u dhex gashay Wayfiska perfect inta hadii lagu soo gudbo overview waa good qaybta registration kima marka waxyaabo aan qabano iyo qaabka inta wax u barno sida uu waad qaybtan page kan uu keeni doonaa inta saad aragtid waxa ku jira baro premium education marka uu horeysa hadda tahay qof Wayfiska inuu professional ku noqdo rabo uu ku trade gareeyo si fiican u fahma qaybta education ka imaanaysa waa one time payment waa $1 bixinaysa كورسدي أو كمبليدا مع الاستراتيجية دي كجرت ماشس هتكون برنامج أفرس بيع كلية سعنسا أفرس بيع لو كنترول أما عشرة أنت لو دياريو مصدوه أنا هالمرة لو وصيناي عشرة الكورسات أرتدوا مركي بدينهين سلف على قاطع لكن مركي يريهين حالة سمايا إن عشرة لو كنترول هبين كستهل عشر لو سو جليو قفكاس 10 كيلو داوود مركي الحقيقية عندنا 10 كيلو لو سو جليو نظام نوع عسل لو وضع ما أنا 10 مالس كذا ديارسن وحل قاعد تداول وراها ما أنا والله كنترول سؤال لك هو جديد أنا هذا سؤال جديد أنت إن شاء الله قيمها كلا كوس هرت مركب قيمتان بريميوم ك قف إجراء صبرت صفة عن قوة صفة عن فهم يا والخبصة كراء لكن ده تهاي قف استراتيجية ده ده عن كترة جرينين وحافظ شو ويا ستا دايركشن سوق أنا بلسعت مركز تا قيمتان بروجا $8 بالكستا كوي تولع عوضة كوجرتو عليه sequence reports ka sidoo kale عليه 1 hour charts ki oo level gareysan jihada suuq u socdo 4 hour ki fiidiyoyada lacagaha saameynta leh fiidiyo la soo geliyaa oo lacagaha suuqa saameynta la iska ilaalinayo fursadaha laga baaranayo inta la soo geliyaa waxa jira sidoo kale weekend technical video oo ah week kasta caawa kala fiidiyo la soo geliyaa oo ku saabsan weekan soo socda qaabka lacagaha loo eegi lahaay jihooyinka laga filayo waxyaabaha soo kordha ku saabsan yahay waxa ku soo hartay premiumka ka wuxuu uga duwan yahay horta lacag ka badan meesha ku jira waa 16 lacagood sidoo kale wuxuu dheer yahay live trading room oo ah fursadii suuqa si toos ah in aad jaanis u heshid oo macalinka kula baaro sababta loo qaadanayo aad ogaatid nidaam noocaas ah badanaa marka qofka signal qalalan inta la siilahay waxa wanaagsan inuu direct u arko trade kan sababta loo qaadanayo iyo sida lagu qaato inuu inta kala socdo marka live trade room fursadaas oo ku siina suuqi inaad si toos ah la socotid perfect intaas waxa ku xiga marka baro Ibrahim ku waa kuwan oo saddex bilood isku gadatid boqolkiiba 10 discount iyo meesha ku jirto sidoo kale waxa jira 1-to-1 training oo aan qofku markuu waxyaabaha ka soo maray soo education soo qaatay education marka baratid waxa u baahan tahay cilmiga baratay real market sidii loogu dabaqayo sidii fursadaha loogu qaadanayo inaad ugu yaraan adiga meeshan aad 3 bilood wax ka soo aragtid premiumka marka education baratid premium kadib ku xigso oo si suuqa si fiican u fahamtid marka intaas isla keentid xoolo waxa noqon doontaa qof wax badan fahansan laakiin waxyaabo yar yar oo muhiim ah in laga jaahil bixiyo u baahan qaybtan 1-to-1 training ka iibsan kartaa oo waqti cayiman aad dooranaysaa 2 hours 4 hours inta aad u baahan tahay markaas aad dooranaysaa oo meeshaan select tambe page kale ku sii geeyo doona marka waxa jira marka trial plan oo 7 days free ah oo bil kasta maalmaha u dambeeya oo la bixiyo website-ka loo fasaxo inuu ardayga fursad u haysto inuu isku soo diiwaan geli karo muxuu ka helaa trial plan-kaas qofku wuxuu heli doonaa weekend technical video sidoo kale wuxuu heli doonaa live trading room weekendiga caawa kale la soo geliyaa oo hadhow camal la soo gudbiyaan insha Allah live trading room-ka oo xiisadihii ardadan premium-ka ay qaadanayeen ayaa todobadaas maalin qaadan doontaa oo waxaad arki doontaa qaabka fursadaha loo qaadanayo iyo sababta loo qaadanayo intaas waa sharaxaadii guud haddartaan still waa available trial plan-ka daawa hore iskaga diiwaan gelin jaanis haysata ka faa'iideyso si aad weekan soo socda qaabka suuqa aan ula soconno sidaan wax yeelno iyo qaab ka duwan aan u fiirino suuqa saad ku baratid insha Allah masaad ku aragtid perfect inta sadda ugu gudbo aan xiisadana toos u galo weekii hore waxaan isla eegnay
crosseska afartan lacagood ugu waaweyn ee crosseska haddaan ku bilaabo qaabka wiigi hore yeelnay aan isla fiirino euro GBP ugu horeysay euro GBP wiigi hore dadastan waxay maraysay 23 November waaye 22 ahayd maadaama caawa kale ay tahay 23 soo furmo oo isliinta ah aan ka sugeynay after impulsigan suuqa ugu yaraan uu u baahan yahay dhaqaaqa leh oo soo nastay dada xusuusataan waxaan dhahnay waxaan sugeynaa inuu suuqan ugu yaraan U-hagan u qaado si uu meeshaan ugu yaraan ay u noqoto wax isla eg ama correction zigzag oo meeshaan uga soo baxbaxo perfect qaabkii wadaa qaabka rabnay wax kasta u socdaan waa u dhaqaaqay haygu waa uu qaadi rabaa after haygan markuu qaado waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inuu suuqu soo nasto hadda this correction waa laba correction oo isku oo waxa waaye laba imbalance oo isku tagay waay kan waa 5 dhaqaaq kan waa 5 dhaqaaq meesha waxa ka soo dhaxbaxay correction magaciisa la yiraahdo zigzag after zigzag aan suuqa haduu soo nasto oo haddana U-hagan qaado meesha waxa macquul ka noqon doonta inuu sameeyo double correction la socotaan waa possible inuu waxba aan other correction u baahnaan suuqan oo cycle kan soo bilowday 11 September correction kan yarka uu ku filan yahay laakiin si u badan tahay anaga ahaan aan ka rajaynaynaa doolera suuq sidaan uu yahay waqti daada kara correction kan yarka ku filan kara balse waxaan ka filaynaa doolera waxaan ka filaynaa insha Allah inuu double sameeyo correction kan markuu dhameystirto pullback another correction simple like that euro GBP muhiimadeeda for our time frame taaganahay short term waaye still muhiimadeedu maxay tahay direction ku suuqu from 11 September jihadu waa bearish waxaan uu hadda wadan waa correction after correction kan markuu dhameeyo suuqa waxaan rajaynaynaa bearishkiisa inuu sii wato insha Allah simple like that muhiimada guud waxyaro waxa ku haray short term fursad bullish ah waa haddii istaraatiijiyadaada ku waafaqayso oo entry ku siiso fursad ahaan oo uga faa'iideysan kartaa laakiin haddii istaraatiijiyadaada ku siinaynin faraha ka qaad because waxaan bixinaynaa ma ahan signal ma ahan setup sidoo kale waa perfect laakiin ani ahaan waxaan kugula talin lahaa waxba bullish ka raadin after correction kan double kan markuu dhamaystirto وهدول دول كان سميه جهاد بيرش كفرصة ولا بارادي استراتيجية ده بسيطة إن شاء الله وهذا عنده بول شكل هذين وكوركشن هيرو أوكي يورو GBP أو فيو جد دارش هو بيرش after correction كم بكرة مال عكس هنا هكتب GBP AUD GBP AUD بيقول معك في لنا as long as تاجين this one كوي تمك سبتمبر واي كنا تاجين عندنا سوقان meeshaan correction uu ka sameeyay structure oo soo nastay waxaan dhahnay two ways u banaan dad xasuustaan inuu direct suuqan u baxo ama inuu correction yar ka sameeyo uu marka la soo filgaro oo kadib kor u sii baxo way goor sidaas ayaan sama had waxay u muuqataa marka correction kan cycle kan dhan oo korkaas ka soo bilowday from March correction ka yiriska inuu ku filnaa laakiin qaabka hadda structure ku sameeyay yahay oo aan soo waray waa possible soo markuu after correction kan u dhameeyo inuu bullish yahay laakiin anaga aan hadda bullish kaas dhan waa ka tala baxnay aan kala jeeynaa correction kan kaliya ku filnaaday direction suuqu waa bearish confirmation ki saxda goorma noqon doona maalinta isdiibaan 11 September simple like that cause marka hore waxaan correction yar leeyahay direction suuqu waa bearish sababtiidan sama isku diyaarina marka suuqan iyo logan qaab ku qaadi lahay insha Allah confirmation saxda markaas la heli doona si uu loo ogaado inuu suuqan iyo cycle bilaabo aslong inta uu dhaxeeya bullish iyo bearish ton uu taleen istaraatiijiyada la kan ku siinayso jihada bearish ka ah oo entry ka siinayso bearish ka fursadaan ugu faa'iideysan laakiin marnaba isku bay gareeyeen cheat code ka maxaa waaye GBP AUD ha isku bay gareeyeen simple like that
direction ko high probability path ko waa bearish okay lacagtan waa xigta shabi BNCD ayadana waa xasuustaan simple layaad waxaan dhahnay 21 September taagan yihiin direction ku waa bullish meelahan mareysay I think meelahan mareysay laakiin waxaan dhahnay haddii new logan qaado haddii new logan qaado waa shirkada waa ay qaado direction bearish buu noqonayaa simple layaad suuqan isku baaygaleen markii hadda ka dambeeya direction kiisu waa bearish mid waa possible dadka correction iska fahansan waxaan inay noqdaan falaad ayna falaad noqdaan kadib suuqu korcaado laakiin anaga maxaa la yiraahdaa long term direction iska badanaa ma u level garayno falaad ama falaad kuma qaadano because waxaad ka hor imaanaysaa jihada guud ee suuqa marka taas marka laga tago direction waa bearish marka waxa uu falaad dhimayno new cycle bilowday waa on side simple level جنب BNCD ناسكو بايجرينه ده فرصة bearish ku siiso entry ku leedahay istiraatiijiyada fursad ugu baaran kartaa okay euro auzi simple like that ayadana isku dhaxasneed wax xasuutaan isku baaygareyneen waxaan saargareynaa idin dhahay because meelahan ay taagneed suuqa correction kan dheer suuq qaabkan ku soo jiray there is no way isagoo new logan qaadin ama hay'an qaadin fursad lagu baaran karin waa range iska wajir Soomaa had still meeshu dhac taagan yahay laakiin wax fursadaha ka baaranine kaliya directionkii saxda ogaada waxaan ka rajaynaynaa anaga insha Allah new logan inay isdhiibaan noocan oo kale inuu sameeyo soo nasto bearish direction suuq waleera direction good waa bearish structure ka weyn ee fair from March simple correction yar waxaan ka yahay markii kala la barbar dhig sama ka hor imaani markii direction ka guud ee suuqa okay euro auzi direction keedu waa bearish cross kurkooda waa cadii sama cross iska macaan dhahnay hasku bay gareenin hadaada bay gareenin aslan gaada bay gareenin inaad safe ahaatay u qornaa doontaa insha Allah okay idan taas ugu gudbi crosska aan dollarka kala marka taswiiq hore ahayd iyo qaabka wax u rabnay inay u dhacaan in kala isla eegnay dollar perfect dollar big picture marka eegno suuqa segments oo bearish ay wada sama new logan simple like that suuqa waa qaadiraba waxba uma jiraba two ways oo banaan oo waliba hal mid inay u badan doonaa oo midaan ka filayno midaan ka filayno ku hormar waa sidaan inuu structure noocan sameeyo suuqa new logan uu qaadi karaa meelaan tii karaa meeshaan taagan karaa wax noocan oo kala adiga kadib bullish dollarka acceleration fiican awood inuu yeesho oo structure kan falaad noqdo macnaha waa wadada koowaad laakiin u badan meen inuu sidaas sameeyo kadib uu suuq soo daato u badan meen maxaa u badanaynaa marka hawo falaad dhihimeeno no simple this correction complete bearish ku soo suuqa waday bearish kiisu sii wadi doona inuu sii socdo leh inuu sii daato ayaan ka filaynaa dollar kawu inuu sameeyo karo waxay tahay inuu wax noocan sameeyo kadib oo soo nasto kadib oo sii daato simple still direction waa bearish lama muhiimadda waxaan ka hadlaynaa waa direction kaliya qaabka uu dhismi lahaa iyo waxaas kama hadlayno direction ku dollar waxaan ka rajaynaynaa inuu daciif sii ahaado la sii garaaco simple as long as you tag in this one ciyaarta hadda kuwana waxa hogaaminayaan kooxda waa kooxda 25 September simple perfect euro USD waa cagsiga dollar oo ciyaartii hogaaminaya waxa hogaaminaya 4 November direction ku new cycle ka bilowday waa bullish ani correction oo sameeyo kara kadib uu sii socon karaa simple direction ku waa bullish
euro USD USD CAD already loogan waa ay qaaday symbol waa bearish ayadana kooxdan ciyaartan hogaaminaysa 29 September directionku waa bearish USD CAD ayadana waa macquul filaadkii aan sheegayo dollarka inuu ka dhaco laakiin u badimayno pound dollar waa isdhiibi rabaan haygan inay qaadaan rajaynayna insha allah maadaama dollarka daciifnimaan u rajaynayno poundkana awood uu sii yeesho ciyaartii uu hogaaminaya 23 September aan ka rajaynaynaa haygan inay qaado qaabkay ku qaadayso noocan inay ku qaado anyway ayagoo level garaysan waxaad website-ka aad geli kartaan qayb trialka still waa furan tahay caawa kale la soo geli doonaa cashirkii oo weekendiga level meesha waxaad heli doontaa suuqii level garaysan sidoo kale xiisadaha oo galbihii baxaan live analyze-ka waad ka arki kartaa chartiska 1 hour level garaynayo 4 hour waxaas meesha ku jira haddaa levelka dareynaysid xaggaas yaa lagaaga horumarin insha allah laakiin ta direction aan bixinaynaa waxay tahay directionku JBBUD waa bullish adwa leera waa possible in falaad meesha ka noqoto ayadana simple like that possible laakiin bali mayno pound dollar upside awzi hay waxa uu jirto oo isdhiib rabaan aan u rajaynaynaa inay isdhiibaan duwalayra noocan oo kala bullback bullish ciyaartii hogaaminayaan 2 November New Zealand already hayga waa ay qaaday simple like that as a confirmation ku ah suuqan upside more upside insha allah any correction upside am sii rajaynayna any correction upside walba noocan oo kala soo sameyn karaa kadib uu sii bixi karaa say u badan tahay perfect direction ku waa bullish New Zealand awood leedahay isku soo gareeyay as long as I can say about that I think in a lacagii naga dhamaadeen dollar intaas ay iska nagu jirtay insha Allah qabka wax dhacan waa arki doonaa muhiimadda guud dollar inuu daciif yahay direction iska markaas way iska cad yihiin soma dollar lacag hogaaminayso isku bay gareeyeen daawad bay gareeyeen safe ay noqonaysaa dollar lacag u dambaysa soo gareeyeen daawad soo gareeyeen safe ay noqonaysaa simple like that taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay dollar awood ma lahan fiirin New Zealand awsidi pound euro waxaas dhan way riixayaan kor u qaadi doonaan okay sidaas ka rajaynaynaa insha Allah muhiimadu waa intaas oo ma santiin hayna balana weega xiga يقابل واحد عن إن شاء الله. أنت سوف تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.